waxaan maanta bacda ka furay printerkan caanka ah noocan cusub ee la yidhaahdo markaasi Bamboo X2D. ugu horreynta waxaa laga yaabaa inay isweydiinayso tiraadid 3D print waa maxay haddaanad hore u maqal. Macnaheedu kooban waxa weeyaan waa qaab lagu daabaco waxyaabaha physicalka oo tusaale imika markaad warqad soo daabacanaysid maktabad baad tagtaa amaba guriga kuu yaala ama xafiis buu machine printer la yidhahdaa kuu yaala deeta mashiinkaasaa marka kuu daabaca warqadii oo tusaale ahaan waxaan samaynaa darowniska noocan oo kale ah lugtan oo kale imika haddaan doonay inaan samaysto waxaan u baahanayaa markaa mashiinka 3D printerka noocyadan kala duwan ayaan markaasi samaynaa taan imika ku hawlanay waa noocan oo kale lamid ah oo bartanaaban ku hayaa lugaheedii oo kale marka 3D printerku waa mashiin markaasi kuu daabacaya waxyaabaha markaa physicalka kartoonkaas weyn waxaa ku jira printerkii caadiga ahaa halka kartoonkan yarna uu kaga jiro filamentkii aad gashanaysay colorskii waxyaabahaas oo dhan laba arrimood baana markaasi u sababa ama laba arrimood baa ugu waaweyn sababaha aan bacda uga furay u soo iibsanay markaasi printerkan qodobka koobaad waxa weeyaan waxaan doonayaa inaan yareeyo ku tiirsanaanshaha aan ku tiirsanayn waddamo kale oo iminka markaan dhisayo darowniskoo kale componentska qaar waxaan ka dalbadaa waddamo kale waxaan doonayaa markaasi inaan yareeyo baahida iyo ku tiirsanaanta aan ku tiirsanayn waddan kale lama odhan karo markaas dhammaan componentska aan u baahan oo dhan ayaan samaysanaynaa waayo taas oo kale waa impossible tusaale ahaan iminka tesla oo kale gawaadhiday sameeyaan electriga kama dhigna markaa inay component kasta sameeyaan oo qaybo badan oo ka mid ah waxay kasoo iibsadaan muxuu ahaa meelo kale meelahay kasoo iibsadaan waxaa ka mid ah sida iminka mercedes oo kale oo ay kasoo iibsadaan geerka yare ku agyaala shaakoonta anu u socdaa waxa weeyaan inaan markaasi soo koobo oo soo yareeyo baahida aan ku qabayo inaan componentska ka dalbado meelo kale qodobka labaad u sameeyey sidan waxa weeyaan maalindooda waxaa dhacday in maraykanku mamnuucay droneskan china lagu sameeyey gaar ahaan kuwan la dhahdo DJI sababta u mamnuucayna waxa weeyaan inuu markaas u baqday daatada waddankiisa oo waxaa jirta shay la dhahdo data sovereignty oo inaad adigu waddankaaga iyo shicibkaaga ilaashata markaas oo daatadiisu aanay meel kala tegin haddii marka waddankaaga ay yaalaan muxuu ahaa drones fara badan oo dad kale ay maamulayaan waxa adkaanaysa hadhow toole inaad markaasi istifaacdo si yaroo dhib yar ayaana markaasi lagu access garaynayaa daatada waddankaagii iyo bulshadaadiiba taan markaasi aniguna doonaya wax weeyaan in droneskayga aan laga maamulin meelo kale oo boqolkiiba boqol aan anigu markaasi maamulayo oo aanan muxuu ahaa sida tusaale ahaan componentska qaar aanay dad kale markaasi access u lahayn haddaan markaasi muuqaalka soo gebagabeeyo arrintan waxay salka ku haysaa projectgii maalinta dhawed aan sameeyey ee wiilwaal markaasi lagu ilaalinaya ama ilaalinayay xeebaha somalilan dronetanna waxay noqonaysaa amaba barnaamijyadan droneskan dhisaynaa qayb bay ka qaadan doonaan hadhow toole inay ilaaliyaan xeebaha muxuu ahaa somalilan oo dronesku waxyaabay ku fiicayn waxaa ka mid ah imika waxaan isticmaalayaa sawiraan ka helay satellite-ka iyo waxyaabo kaloo fara badan laakiin si aad sawir dhow dhulka uga heshid hadhow waxaad ku khasbanaanaysaa inaad ama diyaarad haysatid ama helicopter haysatid amaba drone haysatid sida awgeed waxaan markaasi aan isku dayayaa inaan markaa projectka kusoo daro dronetaas oo iminka waxaan wadaa waxay tahay prototypingkii qaabka u ekaanayso inta saacadood ay duuli karto iyo waxyaabahaas oo dhan ma raba inaan ka hor dhaco laakiin muxuu ahaa bilaha soo socda ayaan idila wadaagi doonaa yacni markay dhammaystirmato